السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشي كوي توناد دول قاعد كنا أفر بقول أفرتنا تدو كوبيغن سدي تونكي بشي أفر لوكم لا تله مسؤول كترسن مريكنكا أيا أكسي وشيغي أكسيان دغالكا laga yaaba inuu dib u bilaabmo maalmaha soo socda. Warbixin uu daabacay boggiisa Axios ayaa sheegay in mas'uul sare oo Mareykan uu ka digay in dagaalku dib u qarxi karo maalmaha soo socda haddii aan horumar laga gaarin wadahadallada la leeyahay Iran. wuxuuna tilmaamay in xaaladdu gaartay meel aad u xasaasi ah iyadoo xabad joojinta ay ka harsan tahay 3 maalmood isla markaana aan weli la cayimin waqti cusub oo kulanka labaad. dhinaca kale digniinta ayaa timid xilli uu madaxweyne Donald Trump qabtay shir degdeg ah oo aqalka cad lagu qabtay xiisadda cusub ee ka taagan marinka Hormuz iyo wadahadallada hakadka galay ee Iran. Tani waxay dhacday kadib markii Iran ay mar kale xirtay marinka oo ay weeraro ku qaado maraakiib wax yar kadib hadal uu Donald Trump sheegay in heshiisyo dhow la gaari karo. Shirka waxaa ka qayb galay madax sare ee ka tirsan dowladda Mareykanka ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda, difaaca iyo maaliyadda, iyo sidoo kale madaxda sirdoonka iyo amniga, madaxda sirdoonka iyo ciidanka. Sidoo kale waxaa la sheegay in Pakistan ay waday dadaallo dhexdhexaadnimo ah iyadoo taliyaha ciidanka Pakistan ah inuu booqday Tehran. Donald Trumpna wuu la hadlay ugu yaraan hal mar. dhinaca kale Iran waxay sheegtay inay dib u eegi doonto soo jeedino cusub oo Mareykanka uu soo gudbiyay. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda cusub ee marinka Hormuz ayaa dhacaysa inkastoo Hormuz hore laga gaaray arrimo ku saabsan kobcinta uraniumka. Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay isku dayday xeelad khiyaano leh oo ay xiritaanka marinka, wuxuuna adkeeyay in Mareykanka aan la cabsi gelin karin, isagoo intaasi ku daray inuu ogolaan doono dhammaadka maalinta haddii heshiis la gaaro. dhanka kale, Sabtidii Iran waxay ku dhawaaqday inay mar kale xirto marinka Hormuz iyadoo ku eedeysay Mareykanka uu sii wado cunaqabateynta badeed. waxayna sheegtay inay sii hay doonto xakameynta marinka ilaa laga ogolaado maraakiibta inay xorriyad uga baxaan uguna soo galaan dekedeeda Iran. Donald Trump ayaa hore u sheegay in laga yaabo inuusan kordhinin xabad joojinta haddii heshiis la waayo, wuxuuna xusay in go'doominta marinka Hormuz ay sii socon doonto, isagoo ka digay in duqeymo cusub ay dhici karaan haddii xaaladda sidaas ku sii socoto. walaalayaal intaas ka rabo inaan kusoo gabagabeeyo qodobkan. wixii war kale
وإن سوسعسين دينا سيدا ugu dhaqsiya badan. السلام عليكم ورحمة الله.